wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo xilligan oo kale aad uga barateen inaad ka daawataan TV-ga Astaan ee magaalada Muqdisho. alaaba barnaamijkeena fanka iyo suugaanta waxaan ku casuunaa fanaaniinta Soomaaliyeed inagoo markaasi ka wareysana xaaladahooda fanka. maanta barnaamijku waxay noogu casuumin fanaan kamid ah fanaaniinta reer Muqdisho, Shaafici Qalbi ayuu markaasi ku magac dheer yahay. aad baan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka fanka iyo suugaanta. dhawahay mar kale waqti qurux badan ayaan ku sii raacinayaa. waa tahay Shaafici waxaad kamid tahay fanaaniinta Muqdisho waana markii kugu horeysay Astaan TV barnaamijkan aan ka qabto. bal dareenkaaga ka waran? wallaahi dareenkayga ama shucuurteeda aad bay u wanaagsan tahay maadaama bahda Astaan TV ay ugu casuumeen holkooda barnaamijka fanka iyo suugaanta. waan gartay daawadayaasha barnaamijka la socdo iyo taageerayaashaada maxaad ugu talagashay maanta? wallaahi maanta waxaan ugu talagalay heeso aan isleeyahay hadbo dhanka jacaylka ah waa ay ku wada maqsuudayaan. qof baa dareenkiisa meel buu abaarayaa laakiin heesayga inkastoo ay kala badan yihiin maanta waxaan diyaar u ahay in ay heesayga masuuq ay ku noqdaan. waa tahay heesahaaga iyo waan kusoo laaban doonaa hase yeeshee taariikhdaada ayay dad fara badan oo barnaamijka daawanaya waxay isleeyihiin talo Shaafici intuu ku dhashay intuu wax ku bartay marka xoogaa inoo soo koob taariikhdaada. aad baad u mahadsan tahay. taariikhdeeda haddaan kuu soo koobo waxaan ku dhashtay caasimadda magaalada Muqdisho sanadkii 1988 dugsiga hoose iyo dhexe iyo sare waxaan ku qaatay Gaheer inkastoo weli aan jaamacad aanan tagin. kulay taariikhdeeda intaas waaye kulay mardhown waxaan rajeynayaa dhanka jaamacadda inaan aado fankana gordho ayaan kusoo biiray. waayahay intaas waa taariikhdaadii koobneed. marka fanka goormaad kusoo biirtay sanadkee? fanka aadaad u mahadsantahay. horta fanka biiritaan ahaan ama markii la yiraahdo baraatikada marka aan soo gudagalay waxay ahayd 2016 laakiin markii la yiraahdo heesayga qaaditaanka marka aan bilaabay oo aan bilaabay hamigayga faneed inaan dadweynaha aan gaarsiiyo waa 2017 oo heesayga oo aan u sameeyay official ama video na u sameeyay sanadkan hadda aan ku jirno. si wanaagsan. waayahay heesii kuugu horeeyay ee adiga aad uga qayb qaadatay tijaabada maxay ahay heesa adiga aad leedahay mise fanaaniin hore heesooda? maya isku madayn horta fanaaniin hore heesa ay leeyihiin inaan aniga heesooda aan taabto ama aan qaado. heesta ugu horeysay aan qaado waa hees aniga aan sameeyay oo miraheeda aniga aan leeyahay laxankeeda aniga ayaan lahaa. waa heesta igu kaliftay inaan fanka ku soo biiro. way fanaaniin fara badan ayaan isku dayay inaan la xiriiro maadaama heesta aniga ay taabanaysay waana hees jacayl ah oo qof oo markaas aniga aan jeclaa oo iga tagtay oo dibna ii soo naqanin marka eray ayaan ka sameeyay. markaas waxaan la tagay muusigiiste waxaan u sheegay inaan doonayo inaan fanaan u geeyo ama fanaan u ii geeyo heestan si ay u noqoto hees professional ah si dadweynaha u ogaadaan qiso dhab oo jirta oo dhacday inay markaas aniga soo gaartay. marka heesta kuugu horeysay waxay nasiib u yeelatay adiga oo fanki raba iyo adiga oo markaas dareen kugu jiro. waay muusigiista ugu dhiirigeliyay wuxuu dhahay heesta hadda adiga cod aad ku leedahay waay aad dad kale u dhigaysaa. waayahay heestaas magaceed marka? heestaas waxaa la yiraahdaa nafsi. nafsi ayaa la yiraahdaa. bal ereyada balka heesta eriyadeeda? heestaas eriyadeeda waxaa ka mid ah ama waxay ku bilaabanaysaa nolol waxa u wacano nolol lala wadaaga nafku nugulo niyadana kaa jecel anigoo ku naawilay jacaylkiina xususay nidirkan dhiganiyo naafaysay inan yahay. waa hees la tusay qofkan in qof uu jeclaa isla marka qofkii uu jeclaana ay ka tagtay. waayahay marka ka dareen ahaana loo tusayaa heestaas. hataa dad baa ay weydiiyeen heestan marka aad samaynaysa meeqa kugu qaadatay ma bilo ma maalmo ma isbuucyo? taas waxaa ka horeysa ma habeen baad samaysay mise maalintii? maya heestan waxaan sameeyay xilli haween aan sameeyay oo weli xilligaas aan sameynay waxaan hayay gabadha aniga markaas aan kala tagnay sabirkeedaan haystay. markaas kadib aan isku dayay heesta inaan qoro erayadeed aan sameeyo maadaama ay tahay heestii ugu horeysay ee aniga aan curiyo. waayahay heestaas kuugu horeysay fanka aad ku soo gashay adiga aad sameysay? si wanaagsan. waan gartay waxaan ku bilaabeynaa dhanka wareysiga waan kusoo laaban doonaa qisooyin fara badan oo aad iga sheekaysa ayaa jirto heesahaaga ka mid ah. marka waxaan ku daafuraynaa heesta la yiraahdo dumar. heestaasi bal maxay ka hadlaysaa ma dumarka Soomaaliyeed loo sameeyay mise dumar qaas? horta ereyga dumar markaad aragto dumarkoo dhan ayay ka turjumaysaa laakiin waa hees markuu abwaanku uu sameynayay uu dhan badan ka eegayay
maadaama dumarka ay yihiin in lagu soo jiito hadallo qurxoon dumarku waad ogtahay badanaa waa in erayo macaan loo isticmaalaa waa haddaad ka rabto jacayl rasmi ah soo jiidashe waadna muujisaa qoftan inaad adiga jeceshahay waa inaad istajabidaa si fiican marka abwaan la leeyahay ama la yiraahdo magaciisa Axmed Fanaan oo igu qaali ah marna macalinkayga ah marna muusishiisa ah iga caawiyay heestaas erayadeed iyo laxankeeda asaga ayaa iskale muusigadana waxaa hadda lug iyo gacan leeyahay kulay ku garaacay Abuukar Yare waana hees dareen ahaan ama wax ahaan markii qofka uu maqlo uu dareemi karo qof in lagu amaanayo waan gartay heestaasi ayaa ugu horeysay barnaamijkeena fanka iyo suugaanta qaybtii hore ee barnaamijka ayaan ku jirnaa heestaasi dumar daawadayaal ku soo dhawaada sugayse iimaan laheeda dumar taan ka soo dhaxeegto nafta soo sugayse iimaan laheeda naftayday sanadadan hablaha kacay samiilkaynu joogniyo adiga u sidaatay saamidii naftayday sanadadan hablaha kacay samiilkaynu joogniyo adiga u sidaatay markaan ku eego xididada wadnaha iyo halbowla dhex saaqda durba saa markaan ku eego xididada wadnaha iyo halbowla dhex saaqda lanoo daran sirteeni hasiinine samir keenu waa hajiibe saddexoo lanoo daran sirteeni hasiinine samirkiyo jacaylkeen sana badan aan soo sidnay waa inaadu samirtaa jaanta isla qaadna samirkiyo jacaylkeen sana badan aan soo sidnay waa inaadu samirtaa jaanta isla qaadna dumar taan ka soo dhaxeegto nafta soo sugayse iimaan laheeda
soo dhaxeegto nafta soo sugayse iimaan laheeda 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 muujinaya caawa waxaan matalaya axmedkii oo inta taagan oo heesayo maadaama heesa ama codkiisa asaga aan ku heesayo dadweynaha aan gaarsiinayo waa hees ammaan ah waa hees marka uu qof maqlo ama taa erayadeeda dumar la yiraahdo ama qoraal ahaan hataa hadii lagu qoro ee qofta soo jilcayso waan gartay waxaan u soo laabanaynaa dhankii kale iyo su'aalaha adiga fanka maxaa caqabadaad kala kulantay fanka wallaahi ilaa hadeertaan wax caqabad ah oo aniga isleeyahay ma lahan dad baa igu sii dhiirigeliyo oo ilaahay maana hore u sii soco ma aan arkin bilowga aad tahay weli caqabad ma jirto Soomaa ma ilaa hadda ma aanan arkin mana rajaynayo inaan arko waa ku rajaynaynaa inaa uga gudubto samo fanaaniinta Soomaaliyeed oo heesta fanaanka jecesha adiga heesiisa inaad qaado aad baad u mahadsan tahay horta qof walba fanaan markuu uu yahay fanaan wuu ku xiran yahay laazim oo u dhageystaa laakiin badanaa aniga waxaan dhageystaa heesaha kabanka markaan tusaale ahaan kuu soo qaado kale Cumar Dhuulo Cali waa qof fanaan weyn waa fanaan markii codkiisa la maqlo qof walba dareemi karo waa fanaan hadeertaan magac ahaan iyo waliba isku darsata taa abwaannimo waa fanaan haddana kabankiisa 100% markuu uu garaacaya taa si cajiib leh inkastoo hadda si wanaagsan aan jeclahay inaan dhageysto sidoo kale waxaa soo labeeyo abwaanka i garab qabto oo la yiraahdo Xuseen Anteeno oo badanaa hataa i yiraahdo heesta inta aadan qaadin ka hor isku tijaabi kaman ahaan heesa koobi ama qaade heesa koobi isku madayn wali haddii lagu dhihi lahaa hees koobi qaad heestees dhihi lahayd waad qaadan kartaa ama aad jeceshahay inaad qaado horta aniga ma rajaynayo horta hees koobi ah inaan qaado inkastoo dad badan ay dhahaan markii xaafadaha la joogo kale markii ay u arkaan fanaan markaan ku heesay codkiisa oo kale ay dhahaan fanaankaas waaba kaga cod macadahay bal heestan maxaad isku dayi weysay marka taasna kulley waa mid gooni ah fanaan hees uu leeyahay in xoogaa la taabto wax kale ayay ila ekaatay marka dhanka koobiga adiga kuma jirto heesaha raabka ka waran ma raab gareysaa heesaha raabka haa heesaha raabka waan isku dayay si wanaagsan heesaha raabka heesta la yiraahdo nafsi nasarkeeda oo xoogaa waxaad moodaa dhanka raabka inay ku jirto maadaama heesta ugu horeysay ay tahay laakiin haddana dhanka raabka way ku jirtaa hees kaloo waxaa jirto la yiraahdo ayadana dhayhaaga wacan iyo indhahaaga dhugulka dhabanada labeyntiyo ma wax loo dhantaalo kaga dhoorsan waayay rabbi baa ku dhowro kugu day qurxe inaad dumar wax dheertaa aniga dhameey heestaasna erayadeed aniga aan sameeyey waa hees raab ah si wanaagsan waan gartay waxaan soo qabanaynaa heestii cudbi oo markaas taariikhdeeda aad hadaa iga sheekaysay hase yeeshee aan rabo in daawadayaasheenan aad uga sheekayso muuqaalkeeda heestaasi waxaad ii sheegtay in gabar mar hore jacayl idinka dhaxeeyey in haddana ay muuqaalka kula jilayso bal arintaasi oo ugub ah sidee ku dhacdaa isdhihi kartaa horta qofka bini'aadanka wax uu jeclaan karaa Soomaalidana jacaylku waxay tiraahdaa jacaylku waa dahab waana daawo iyo malab waana nolol dareen badan waa dooq xusuus ku leh marna waa sun iyo dacaar marka sun iyo dacaarku uu yahay waa marka qofka adiga aad jeceshahay garabkaaga aad weyso tan kalena badanaa jacaylka caqabada haysto waa dhanka calafka waxaa soo labeeya dhanka waalidka waalidkana kuley waxaa la yiraahdaa waalid korkiisa wada indho inkastoo hadda guurka dhacayo badanaa u badan yahay guurka qoorqabadka marka gabadha calafka qoorqabadka macnaha labada qof oo la isku daro waan gartay marka adiga gabadha waxaan uga dan leeyahay videoga heesta markaad soo saaraysa gabadha kula jilaysa gabar jacayl oo kala dhaxay jiray ahayd maxaa idin kala geeyay marka hadaan kula kabta kuley hadeertaan inaan kusii dheeraado dooni maayo laakiin gabadhaas jacayl baa naga dhaxeeyay muddo isla soconay laakiin meesha calaf baa soo galay gabadha waan kala tagnay muddo kadib anigoo doonaya muuqaalka inaan sameeyo aan sikadiisa aan ku kulannay waxay tiri bal maxaad samaynaysaa hees ugu baan sameynayaa oo jacayl ah marka sida ayay muuqaalka ila soo gashay waana hees cajiib ah heestaan hataa marka aan qaadayay abwaanka hees isoo siiyey wuxuu yiri heestaan qofka ugu horeysta oo dhageysta ama maqla aan aniga aan naqdo maadaama heestan sidaas ayay ugu soo gaartaa abwaankana waxaa soo gaarsiiyey abwaan kale
wuxuu yidhi abwaankaas iga gaarsii yarkaas heesta waa hees la isku hadiyay oo qofba qof u sii dhiibay si fiican marka muuqaalka gabadhii aad gocanaysay oo aad jeclaan jirtay aad ku aragtay adiga dareenkaaga ka warbal والله waa kartaa qof adiga jeceshahay marna kuu dhow marna kaa dheer caqabada ay leedahay jaceylkana waa wax la yaab leh marba dhinac ku kaxeynaya waxa laga yaabaa taa jaceylka qaar dareen ma kugu soo celiso mar kale in jaceylka dib u soo cusboonaysiiso والله كدرين ahaan waa isku day laakiin xogaa ma suurta gali karto waa waqti iyo waaya ay dhahan dadka waan kartay marka heestaasi hadda iyada ayaan saareena heesta cudbi bal wax yar noogu luuqay heestan cudbi horta erayadeeda waxa sameeyay oo leh Axmed Rooble Cali Dayax muusigadan waxa iga caabiyay Abu Karyare laxankan waxa saaray Xuseen Anteeno heesaha Abu Karatuma si wanaagsan dhanka laxankan Xuseen Anteeno iga caabiyay waa ninka aan boqolkiiba boqol garabkayga taagan heesaha qaarna asaga isiyo oo markii oo isleeyahayba fanka waa ku hormari kartaa heestan ayuu wuxuu leeyahay tan hadii ay ku waa salaamina Abuukar marka heesta xoogaa yar naga maqashay heesta cod ahaan hadaan ku maqashiyo waxa ay leedahay cudbi jacayl cidna kama baqo wali loo cuskanayo cayrina ma jiraaye waan cuduran harin oo cad ka kulul mar aduu noqdaa beerka ka cune waa hagaag codkaaga waxaad moodaaba inuusan muusig u baahnayn ma lagu yiri weli waa cod macaanta aada weyn waa tahay daawadayaal heestaasi cudbi iyo fanaanka adin kala baxo cayrina ma jiraaye cudbi jacayl cidna kama baqo weli loo cuskanayo cayrina ma jiraaye waan cuduran harin ka kulul mar haduu noqdaa beerka ka cune waan cuduran harin oo cadeed ka kulul mar haduu noqdaa beerka ka cune ila qofkii oo caashaq galo qodku cunayana xaloolka ma baxshay macayla qofkii oo caashaq galo qodku cunayana xaloolka ma baxshay caalabkii ka yeel inantii casay kama xaajisay caadilo wallo caalabkii ka yeel inantii casay kama xaajisay
dahab cagaheeda luul cadar waa dhaxdo cantoobka ma badne carabkeeda dahab cagaheeda luul cadar waa dhaxdo cantoobka ma badne cududada gacmaha calooshiyo indhaha cabirkiyo qalbiga calla tuura male cududada gacmaha calooshiyo indhaha cabirkiyo qalbiga calla tuura male ciridkana madow dadabkana ilaa cilnoo ka xawaa waa xuuralcayn ciridkana madow dadabkana ilaa cilnoo ka xawaa waa xuuralcayn caadilo wallo caalafkii ka yee inantii casay kama xaajiseen caadilo wallo caalafkii ka yee inantii casay kama xaajiseen kama xaajiseen kama xaajiseen kama xaajiseen waayahay caadilow allow inantii caseed calafkayga ka yeel kama caajiseen si wanaagsan waa hees ammaan ah waa hees rabbi la tuugayo leeyahay inantii caseed bal khayrkayga ka yeel sawjadeeda ka yeel waa hees shaaficiyow jacaylka see isku tihiin inkastoo aad ii sheegtay jacaylka inaad isku ba'an tihiin si wanaagsan horta jacaylku waa isku wanaagsannahay inkastoo mararka qaarkiis xogaa dhibaatadiisa ay badan tahay walaahi jacaylkii igu darnaa itaabto nolosheeda raad ku reebo wuxuu ahaa jacayl igu kalifay inaan jacayl dambe hataa aanan samaynin isaga dhanba iska dhaafto si wanaagsan waa jacaylka igu horeeyey wuxuu xataa i geliyey dhankii fanka maanta waad ujeedaa dhankii fankiyaan lasoo taa erayo aad samaysay heesta ugu horreysay aan sameeyay hataa waxaan ka sameeyey jacayl ama qiso aan i qabsatay horaa waxaa loo yiri mataqaana rag ama ciil u gabay ama caashaq marka adiga caashaqiyaa u gabaydayo wataa heesta aad ka soo saarta aada u weyn waayahay maxaa kuugu darnaa intii adduunka aad ku nooleed wallaahi waqti xun muka soo mara horta waaga waqti xun waa isoo maray xiliyaan tahriib galay waa tahay oo waddanka aad ka baxday ay igu darneed xilligaasna waxay ahayd waa xili baddi nagu kacday anagoo ku jirno doon aan saaranahay maya badda yemen waxaan ka baxnay jabuuti inkastoo 3 saacadood loo socdo haddana baddiyaa nagu kacday xilligaasna dabaal ma aanan aqoonin haddana waxaan ku dhiiraday inaan markaa baxo tahriib aan galo si wanaagsan marka waa ka baxday heesaha adiga aad qaado teebaa u jecesha heesaha aniga aan qaado heesta hadda aad maqlaysay ee cudbiyaan ugu jeclahay waana heestii ugu dambeysay aan ku luuqeeyo inkastoo hees xilligan laysoo dhiibay ay jirto oo weli aanan sii shaacin karin oo hees jacayl ah ayadana way jirtaa oo la yiraahdo qadro oo goordhow soo bixi doonto oo isla abwaankii ii dhiibay daadiska waxba isku dayda weli inaad wax ku daadiso gabadh aa ceeriso si wanaagsan dhanka fiicneen gabadh in la ceeriyo gabdhaha ku fiican yihiin in la soo dhaweeyo si wanaagsan hadda waxaa jirto hees laysoo dhiibay goordhow soo bixi doonto la yiri oo heestaas waxaa la yiraahdaa dhiidkaagii waa dhacay waa hees daadisa abwaana sameeyey kulay ma aqaano sababta uu sameeyey waan salaamay hadduu hadda i daawanayo Salmaan Saciid Yuusuf
wuxuu leeyahay dhaldhalaalkii wacnaa kugu soo dhawaada kugu dhagnuglaada ruux walba wuxuu dhigto ayuu dhaxal u helayaa dhibkaagii dhadhamiyey dheedkaagii waa dhacay waaba dhacaba si wanaagsan ma laga yaabaa in dib uu dheedka usoo cusboonaado kuley afwaankan weydin doonaa inkastoo heestaas ay cusub tahay kuley goordhow ay soo bixi doontaa waan gartay heesta kale oo ku xigta barnaamijka noo soo qabo heesta xigto aan kuu soo qabanayo waa heesta nafsi waana heesta qisadeeda taabanaysa waa hees marka aan dhagaysto kuley shucuurteedu way isbedeshay oo heesaha adiga aad qaado dhan waa wada qiso adiga markaasi kaa socda si wanaagsan dhanka jacaylkaas ku ba-anteeniyo si wanaagsan inkastoo jiraan wiilal ila soo xiriiro dhow bal qiso ii samee hees waxaa jirto la yidhaahdo saciido wiilaan saaxiibanahay aan u sameeyey oo isku dayata inuu sun uu cabo gabar uu jeclaa darteeda heestan nafsi miraheeda iyo laxankeeda aniga iskale muusigadeedna waxaa iga caabiyey axmed fanaan oo ah muusigiista marna ah mulaxamiiste daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan markaana heestii nafsi iyo weliba fanaankii qaaliga ahaa shaafici qalbi قلبي موسيقى أحمد فنان وادوستي هوينتي عمر منيا وكر الهادي ستار موسم مقدش الصومالي نحب أدكو بيرته نفسي ومهوران أتنمري سكورو ميدي كديده نحب أدكو بيرته نفسي ومهوران أتنمري سكورو روح ديغا كون قلبل نحب لغو مسوره وانغو جعيلكويه وانور اندمين سينولان كرايه نفتوي كديته نفسي ومهوران أتنمري سكورو وي 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 I hate you la 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 نيدي كديده نحب بيرته نفسي ومهوران ميري سكورو نيدي كديده نحب بيرته نفسي ومهوران ميري سكورو نيدي كديده نحب بيرته نفسي ومهوران ميري سكورو نيدي كديده نحب بيرته نفسي ومهوران أتنمري سكورو yahay daawadayaal heestaasi nafsi ayaan intaas uga soo laabanaynaa qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay heesta waxaa ku jirtay I hate you waa hees la tusinayo qofka haddii marba laga daba cararay waa meeshii ugu dambeysay in la leeyahay hidi waan ku necbahay heesta erayadeed waxaa ka mid ah nolol waxa uu wacno nolol la wadaagaa naf kuu nuguloo niyadana kaa jecel anigoo ku naagula jaceylkiina xuusisay nidarkaan dhigan iyo naafeysay inan yahay waayahay niyahow horta waxaa jirta qofka bini aadanka ah in 7 ama 8 weji oo u eg in la heli karo sida ay sheegaan culimada markaasi dhanka bini aadanka
adiga yaa lagu dhahaa inta badan waad u eg tahay ama lagugu soo qabtaa aad u mahadsan tahay horta qofka biniaadanka dadku waa isku ekaan karaan laakiin qof leegu matalo leeyahay bal hebel baad u eg tahay wuu jiraa waa qof caan ah bulshada way wada taqaanaan Soomaalida haddaan nahay waxaan u naqaanaa jeeri haye jeeri oo weliba aad caanka ugu ah turjumada aflaanta hindiga iyo markaasi noocyada kala duwan si wanaagsan waxaa leeyahay bal jeeri maxaa isku aheedeen oo isku egtihiin marka adiga jeeri hadda aniga ko markaan ku arkay jeeri ayaan ku maleynay si wanaagsan marka waa walaalka ma ilma adeer inaan nahay laga yaabaa waayahay jeeri inta badan waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay qof comedian ah adiga dhankaas ma ka raacday xoogaa haddaan isku dayo waa ka raaci karaa markuu isku dayo wuxuu leeyahay qalbinaadi batati waay xoogaa majaajilidiis aad baan u jeclahay filmaantiisa oo turjumana aad baan u daawadaa badanaan waxaan isku dayaa hataa markaan ardayda ama saaxiibadeyda la joogo inaan xoogaa codkiisa aan koobiyo oo aan dhaho dadka aad uga maadayso si wanaagsan oo aan dhaho labadan bilmini la arkin waxa way shuuq xumaa jirto marka hindiga adiga ma daawataa hindiga aad u weyn dhanka astaanaan daawadaa oo yacko iyo akhyaar fara badan oo daawado iyo maryan oo kale si wanaagsan dhanka kalena waxaan daawadaa waxaan isku fiicannahay dhankii ubadkii astaan ubad oo Oscar laga soo dayay Tom and Jerry iyo isku fiicannahay adiga atoore ma ka noqoto weli riwaayad aad sameysay ma isku madayin laakiin riwaayada lagu keeno lagu yiraahdo boos ka qabso dhinacyo ka qabsaleed wallahi dhanka laadarkan ka qabsan lahaa oo dhanka xaasinimada hay laadar aad filimkiisa daawata kee kuugu xumaa wallahi laadar aan daawado waxa igu xumaa filim daraad socday oo weli laakiin aniga aan aqoon filimkaas magaciisa waa laadar ummadii oo dhan oo leynaya markaas wuu ku farxayaa ummadda markuu leeyo haddana wuu ku farxayaa ugu dambeyn asaga laga adkaanaya laakiin waxay kusoo biishubanaysaa ummadii oo dhan inuu wada leey xitaa isbitaal bam ku xirayaa dhibaato u geysanaya laadarkaas ay ugu yaa ku badnaa waa sidee caanka ku yihiin laadarinta filimka maba soconaya dii dadkii dhan iswada raacsan yihiin soo maaha waa tahay in qaybii dambe barnaamijkan soo gaarnay marka fursadda u dambeysay ayaa salaamaysaa dad badan haday ku arkaan adiga oo soo horfadhiyay shaashada Astaan TV waxay leeyihiin talo ma ku salaami doonaa ma ka tagi doonaa adiga markay salaamaysaa hal iyo labo wallaahi horta hal iyo labo hadii la yiraahdo ama niyaad salaamaysaa waxay noqonaysaa buuq dheer inaan soo qaato waliba 3 beriyaad salaanta wadaysaa 4 beri inaan sii wado waan soo koobeynaa waxaan salaamayaa muusigiistayga marna saaxiibkayga Axmed Fanaan oo ah ninka muusigada iga caawiyo Abuukar Yare ayaan salaamayaa Cumar Muuyi Abuukar Alhaadi iyo Shiine akhyaar oo mar walba igu dhiirigeliyo dhanka waayaha cusub asi digriyo waan salaamayaa iyo arrimaheeno oo dhanka codowista iga caawiyo waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan waxaan kaloo salaamayaa saaxiibigu qaali ah marna kaamiristayga wax walba kaamirista ayuu leeyahay kaamir 2 ilaa 3 Asmar DJ Asmar waan salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa Cabdinaasir UK iyo Lucky Man iyo waliba asxaab fara badan oo hadeertan aan soo koobi karin wayahay heesta ugu dambaysa dollar ayaa la yiraahdaa si wanaagsan heesta dollar heestas dollar waxaa sameeyay ama erayadeed waxaa iska leh Xuseen Anteeno waa ninka badanaa isiyo heesaha heesta waxay ka turjumaysaa qof aan lacag haysan wuxuu leeyahay gabadhii wuxuu sheegay wuxuu leeyahay aniga lacag ma haysto waxaan rabaa inaad i raacdo oo aan iskursano oo reer yag leelano yaa leeyahay ka dirin dad waxaa jiraan si wanaagsan Xuseen Anteena sameeyay laxankan asaga ayaa saaray muusigan waxa iga caabiyay Abuukar Yare adigana codkaaga macaanaa oo la tagtay si wanaagsan waayahay daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeeni fanka iyo suugaanta oo xilligan oo kale aad ka daawataan TV-ga Astaan ee magaalada Muqdisho barnaamijka waxaa igu marti ahaa Shaafici Qalbi oo kamid ah fanaaniinta markaasi ka haysta magaalada Muqdisho aniga oo Bishaare Maxamuud ayaa barnaamijkeeda la socodsiinaysay akhyaar kale oo kamid ah bahda Astaan TV ayaa igala qayb qaatay intaan kulmeyno barnaamij mid ka lamid ah aniga iyo asxaabteeda waxaan ku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo
dawaafaa dayaxiyo xidigaha ku dagaa dushoodo haydiidina soo dabaa akuya doq jacaylo dabkana igu shidino midantaydaanu geyno dumarima jebiseen dariiqiguma dhaafteen akuya doq jacaylo dabkana igu shidino midantaydaanu geyno dumarima jebiseen dariiqiguma dhaafteen haddaan doolar laagiyo ama duunya leeyahay sakuma dawaafeen sakuma dalxiiseen haddaan doolar lacagiyo ama duunya leeyahay sakuma dawaafeen sakuma dalxiiseen dayaxiyo xidigaha ku dagaa dushoodo haydiidina soo dabaa daruura cirkan dawaafaa dayaxiyo xidigaha ku dagaa dushoodo haydiidina soo dabaa labadii isdoorata daacadisu ahaatana dad baa kala diraaye haddaadan doqolahayn yaan laygu kaa dirin labadii isdoorata daacadisu ahaatana